Guddiga gurmadka ganacsatada Beledweyne ayaa maanta ilaa iyo 4,000 oo qoys oo ka mid ah qoysaskii ay saameynta xooggan ay ku yeelatay fatahaadii webiga Shabeelle ee Beledweyne uu ka sameeyay waxay ugu qaybiyeen goobo kala duwan. Raashinka guddiga ay u qaybiyeen qoysaska saameynta ay ku yeelatay fatahaadii webiga Shabeelle ayaa 2,500 oo ka mid ah waxay ugu qaybiyeen xaafadda Howlwadaag ee Beledweyne, halka 1,500 oo kalena iyana loo qaybiyay qoysaska barakacay deegaano u dhexeeya Beledweyne iyo weliba Jawiil oo dhaca waqooyiga magaalada madaxda gobolka Hiiraan ee Beledweyne isla markaana ka mid ah qoysaska sida xooggan ay u saameysay fatahaadii webiga Shabeelle. Qoysaska raashinka loo qaybiyay ayaa waxa ay ka timid rugta ganacsiga Soomaaliyeed iyo shirkadaha Hormuud iyo weliba Dahabshiil. Madax ka mid ah guddiga gurmadka ganacsatada Beledweyne oo warbaahinta la hadlay ayaana faahfaahin waxa ay ka bixiyeen qaabkii ay wax u qaybiyeen. إلهي بما أذكر سبحانه وتعالى وأنت وحى يقضي كلا دوانين ومقالة Beledweyne هذه المتعدلة أو قيبتي كواد يسوق معطي في شسكي قدام بي أو لعاقه يسوق بيبين شركة يقول ganacsiga Soomaaliyeed isku soo daqareen shirkadda Hormuud iyo Dahabshiil iyo shirkado badan oo Soomaaliyeed iyo culimada iyo rugta ganacsiga dhammaan lacagtaas oo feeskii koowaad 10,000 la siiyey waagii hore oo qoys haddana qaybihii ugu dambeeyey deeqa fara badan ayaa gobolkan soo gaara oo hadda la soo koobi karin insha allah mar baan ka hadli doonaa qaybtii ugu dambeysay oo 4,000 oo qoys aheed na soo gaartay ayaan ku jirnay shalay iyo maanta iyo daraabto maanta waxaan joognaa magaalada Jawiil oo aagga ku xeeran oo ka soo bilowday magaalada Beledweyne ilaa magaalada Guricado oo aagga feerfeer ah Guricado iyo Mareer Galgaabta iyo Bacaad iyo meesha la yidhaahdo Ilkacado iyo Dowlad tuulooyinkaas ku xeeran webiga jiinkiisa oo dadkii ka soo barakacay halka ku soo barakaceen ayaan maanta waxaan siinay 2,500 oo qoys oo xaafadda Howlwadaag lagu qaybiyey dhinaca waqooyi dhinaca koonfureed halkaa kun lagu qaybiyey 1,500 goobtaan hadda Jawiil aad arkaysa lagu qaybinayo oo tuulooyinkii ay si habsami u qaadanayaan waxaan leenahay wixii soo dhiibay bedel khayr qaba maanta waxaan joognaa Jawiil laakiin maanta inaga soconaan Jawiil markii ilaahay mahadkiis si wanaagsan ay u sheeranaysaa sida jirtane waxaan moodaa magaalada hadda lagu soo laabtay oo dadka badankiisa ku soo laabteen deeq badan ay soo gaareen hadda wixii ka dambeeyo waa in laga fikiraa inaanay soo noqon musiibadan oo laga dadaalo Jawiil ma kala bay hadda sida loo yaqaan raashinkaas oo kala talagalay mareerka meesha la yiraahdo Guricado ilaa jiinka webiga ku tagto meesha la yiraahdo Ilkacado ilaa ku tagto jiinka webiga marka dadkii soo qaxay oo dhan webiga ka soo baxay meesha ku soo qaxay oo saldhiga u ahayd meel kala barta waay marka raashinkaas oo ka yimid ganacsatada Soomaaliyeed rugta ganacsiga Soomaaliyeed sida Hormuud Dahabshiil shirkadaha waaweyn oo magacyadoodu aad u tiro badan yihiin hadda aan la soo koobi karin laakiin saldhigooda ku wada ka rugta ganacsiga Maxamed Ibraahim Siyaad telefishinka caalamiga ah ee Kalsan Beledweyne.